واتهاي وحا دقال لبيلات كسو عصبونادين deegaanada galbeedka gobolka Mudug oo halkaasi ku dagaalameen ama dirir ku dhaxmartay laba beelood oo walaala oo halkaasi wada diga si aan arinta wax uga sii ogaano ayaan waraysi la yeelanay xildhibaan Maxamed Yaasiin Isxaaq oo ku sugan magaalada Gaalkacyo mudane haddaad maqashid bal waxaad nooga warbixisaa dagaalka ka dhacay galbeedka gobolka Mudug labada beelood oo walaalaha u dhaxeeya alxamdulillah الصلاة والسلام على رسول الله انت aanan ka hadlin dalabta waxa dhacay si idinka iyo shacabkuba aad u fahantaan waxaan rabaa inaan ka soo bilaabo hawlaha kan markay soo bilowdeen 2020kii ayaa beelaha Sacad iyo Leelka Samudug waxay kala saxiixdeen nabad waqti badan la galiyay dhaqaale badan la galiyay dadaal badan la galiyay loona hagar baxay oo ay qayb ka ahaayeen maamulada labada dhinac Galmudug iyo Puntland iyo dowladda federaalka xildhibaano iyo wasiiro iyo wafdi kale oo ka yimid wadadaas waxa lagu qabtay magaalada Bandiiraley iyo magaalada Galdogob ayaa lagu qabtay guul fara badan laga gaarin waanu ka dignay maalintii nabadaas la qabanayay waxaanu digniintiina ku salaynay inayna nabadu shaqaynayn haddii aysan helin awood ilaalisa oo fulisa waa gartay nabadii waa budday nabadii dad baa dhintay gaaraya ilaa 50 qof oo labada dhinacba ah mar kale ayaa asbuucan maxay tahay marka xildhibaan waxyaalaha nabadda buriyay maxaa loo aaneyn karaa waxa loo aaneynayaa dadka oo daris ah iyo Soomaalida oo dhaqankeeduba hadda isaga salaysan yahay qabiil iyo qabyaalad koolxun iyo baadka iyo daaqsinta oo la isugu imaanayo oo dadkii sharci iyo wax kala xakameynaya iyo awood ay ka baqayaan aysan jirin wixii qabiiliga ahaa oo Soomaaliya waxa la arkay dhaxalsiiyay oo baabi'iyay ayaana dadkii wali intooda badan Soomaalida wali ay aaminsan tahay waata xildhibaan dhawaan waxa idin soo gaaray oo magaalada Galdogob la sheegay inay yimaadeen laba wasiir oo wasiiradaas ka socday xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ma arrin kale u socdeen mise heshiisiinta beelaha waxay u socdeen maadaama nabadii hore budday sidaan ku sheegayba in nabad hor leh sida ayagu ay sheegeen ay raadinayaan oo rabaan inay labadaas beelood ay mar kale isku keenaan nabad muddo laga joogo 7 bari bay ahayd waa yimaadeen beelahana way la kulmeen Gaalkacyo waa yimaadeen Galdogob waa tageen deegaanada kale waa tageen markii ay tageen anigu ka xildhibaan ahaan shirjaraayid baan qabtay waxaanan u sheegay intii 2010kii aan u sheegay oo ahayd aan la helin awood ilaalisa waxa labada beelood ay ku heshiiyaan oo kala saxiixdaan in nabadaasi aysan hirgelin sidii tii hore kalena ay sababayso dhibaatooyin iyo khasaare lixaad leh shalay ayaa odayaasha labada beelood shir wuxuu uga furmay magaalada Gaalkacyo intaadan ka bixin intaadan odayaasha u gudbin xildhibaan mas'uuliyiintii federaalka ka socday maxay qabteen oo labada wasiir ahaa waxay qabteen beelihii bay isu keeneen in shir uu furmo oo beeluhu isu yimaadaan intaas wax qabadkooda ku salaysnaa iyo adigu in beelaha la isu daayo oo ayagu ay wada hadlaan oo ayagu ay heshiiyaan oo ayagu ay korka dul joogteeyaan oo ay kor kala socdaan dabcan iyo midda kharashaadka inay bixiyaan inta shirka la fadhiyo baxaya marka
shalay baa shirku odayaasha u furmay labada dhinac hadduu u furmay maanta qaybtiisii labaad iyadoo loo fadhiyo ayaa wixii aanu ka dignay 6 beri ka hor shirka jaraa'id ka qabanay ahayd in waxa kanu wax sidaas u dhamaanaya aysan ahayn haddaan awood la helin ay dhaceen galabtay ayaa labadii bilood dib dagaal uga bilowday waxayna isugu yimaadeen geel la kala dhacay iyo waxyaabo noocaas ah adigu khasaaruhuna labada dhinac baa hadda ilaa 15 tobaneeyo baan ku qiyaasaynaa xagga dhaawaca wax dhimashaa weli ma aanan maqal laakiin dhaawacyadaasaan maqalay qorraxdaana isugu dhacday dagaalku siduu u socday waana wax dhici kara inay subaxiina uu dib u bilowdo waa tahay aamin ilaahay naga joojiyo xildhibaane sidaynu wada ognahay labada beelood waxay ku kala jiraan labada maamul dariska dowladda Puntland iyo Galmudug miyayna saameyn ku lahayn maamuladu inay arrintan kala joojiyaan oo kala dhaxaadiyaan maadaama uu dhex yaalo xiriir nabadeed oo soo jireen Puntland iyo Galmudug saameynta ugu weyn ee muuqata ee la qaadan karo waxa ku leh dowladda federaalka ah labadan maamul laga yaabay shakhsiyaadyo inay ka joogaan beelaha ka soo jeeda oo ayagoo dowladooda dabcan soo dirin ay iska fadhiyaan meesha maadaama ay beelihii wanaagooda iyo waxaas jecel yihiin iyo in la heshiiyo laakiin saameynta saxda ah ee muuqata waxa wada oo ku leh dowladda federaalku maxay qabatay marka oo aad noo sheegi kartaa hadda oo noo taaban kartaa maadaama wasiirka arrimaha dibadda ka wada Axmed Macalin Fiqi iyo wasiiradda ilaa iyo hadda roolkoodu waa isu keenidaas maxaan ku iraahdaa labada odayaasha labada dhinac ay isu keeneen oo يعني facilitation ama fududeynta ay wax fududeynayeen iyo dabcan kharashaadka shirku ku soconayo oo aan malaynayo in dhinacaas dowladda federaalka uu ka imaanayo ama يعني adoo hawlahooda ilaa iyo hadda taas weeye laakiin waxa ka muhiimsanaan lahayd inay diyaariyaan ama dowladda federaalka ka keeneen ama labada maamul hala kaashadeen ciidan awood leh deegaanadaas meel laga dajiyo oo nabadaas ilaaliya inta dadku ay la qabsanayaan wanaagga iyo walaaltinimada iyo ehelnimada iyagu ma jiraan ismada dhaqanka ee labada beelood ma jiraan iyagu ama odayaasha chief caaqilada ama salaadiinta baandhahe ma jiraan dad iyagu iska arkay arrintan dagaalkan soo noqnoqday dad iska arkay oo hadda ka horeeyay iyo shirkii 2020kii ma jirin adigu markasta markay wax dhacaan telefoonno iyo waa lagu hadlaa laakiin fadhi la isugu yimid ma jirin waxa loo isku haystana walaale waa daaqsinta iyo deegaanada meesha beeluhu dariska ka yihiin weeye waxa dhibaatooyinku ka dhalanayaan marka ilaa xal loo helo waxaan arkaa in nabad la yeero dadkan aysan muuqan ilaa ciidan fulinayo oo ilaalinaya la helo mar haddaan derisnimadii walaaltinimadii soomaalinimadii fiximnimadii ehelnimadii qaraabanimadii aan la isku nabadgelinayn waxaa muhiim ah intaas soo noqonayso ama cid awood leh oo fulisan la helayo wax lagu heshiiyo waxaan halka u arkaa in labada beelood mid walba meeshii ilaahay ku abuuray ay ku sugnaato kuna noolaato xildhibaane shirkaaga jiraad waxaa ku jirtaan filaya in dagaalkan dad siyaasad uga dan leh inay hurinayaan ma jirto maxay tahay siyaasaddaasi wallahi siyaasad hadda waxaa la oran karaa gacmo kale iyo waxbaa ku jira maadaama dadkan dhibaatooyinka ka shaqeeya ay beelaha isticmaalaan waxaa la oran karaa gacmo kale waa ku jiraan oo dadka nabadiidka ah markay rabaan deegaanada inay ku xoogsadaan beelaha iyo waxyaabahaasay laakiin يعني كشقيان إنه يسكت عن وأتذكر تاين وحنا لها سكوت شرال إن عكلا دولة فدرالك
iyo maamuladuna maadaama ay la oran karo iskuma fiicno waa dhici kartaa iyaduna in yani waxyaabo jiraan la xiriira arrimaha macnaha ma waxa ka wadaa saameynta dowladda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya xiriir la'aanta ka dhaxaysa habka dowladda federaalka uu soo xoogsaday ilaa wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka dowladda hawada ay yimaadaan ma fududa arrintu in ay ka xoog badan tahay dhinaca federaalka way muuqataa laakiin doorka ay ujeedada ay kala yihiin ujeedada siyaasadeed oo ay yani ku duminayaan ama ku wiiqayaan ama ku muujinayaan maamuladaasi inay hawlahoodii gabeen ay rabaan inay ku muujiyaan iyaguna isku dhisaan miyaa mise waa ujeedo kale mise waa lilaahi ilaa iyo hadda waa arrin u baahan baaritaankeeda iyo xogogaalkeeda iyo kuurgalkeeda laakiin waxaa muuqata nabadan wadadii saxda ahayd ee lagu raadinayay inayna ahayn midda dadkan hayaan federaalka ka yimid ma aha sidii saxda ahayd ee nabadda loo raadin jiray ma ahan marka deerisay waxbaa jira riisa sabab baa jira aqsoon oo farsamo xumo ma oran karo meesha ay marayaan labada wasiir ee dowladda ka socda farsamo xumo ay ka tahay ma oran karo laakiin waxaan oran karaa yani hagar baa jira ama something oo kale oo u qarsoon baa jirta waa gartay mudane xildhibaane hagartaa wax ma nooga sheegi kartaa mase carabka sama ku dhufan kartaa bal meesha ay tahay si aan u darin hagartu waxay noqon kartaa maadaama aan wixii si sax loo raadinayn oo nabadii si la rabay loo raadinayn oo hoos inta laga soo bilaabo kor loo dhiso oo lala kaashado maamulada labada shacab ay ka soo jeedaan lala kaashado mar haddaan siyaabahaas oo dhan tallaabooyinkaas oo dhan la marayn waxaa la oran karaa يعني صح معها قابك وحلو رادينيو ما جرى حلدبان باقي كو آدنا ودرتين مسؤولين تا قلمدوك مسؤولين تا دولة بوتلان أدوك على درتينو نبضين تا لبضن بيلودا وأدباق وتشيريسين ما جرتها باقي علو أنشيدي أو أفر بركور دوبي وحاكو جرتي إن لبضن معمول قبلات أي مهم تاي arrintan inay soo fargeliyaan dowladda federaalkana baqaan u diray waxa weeye inay uga dambayso labada maamul goboleed ee dadka shacabka islaynaya ay ka soo jeedaan iyo odayaasha dhaqanka inay uga dambeeyaan labada maamul goboleed iyo odayaasha dhaqanka inay uga dambeeyaan dowladda federaalkana baqaas aan u diray labada maamul goboleedna waxaan u diray in ay yihiin shacabkoodii waxa islaynaya ayagana aan la fursanayn nabadda saxda ah cidda keeni karta ay odayaasha dhaqanka beelaha iyo labada maamul goboleed marka iskaashadaan la heli karo laakiin dowladda federaalka hawsha ay wado waa boog kor laga dhayayo oo aan hoos loo dhaadhacayn boog kor laga dhayayo maxaa ula xildhibaane maxaa ula jeedaa boog kor laga dhayayo macnaha halkaas maxaa ula jeedaa arrinta haddaan hoos laga soo bilaabin oo odayaashii iyo maamuladii ay qusaysay laga soo bilaabin ayagii hawsha ay inta kor laga soo waariday ay yimaadeen oo aan maamuladii aysan hawshii la wadin waa arrin ma garanaysaa kor laga marmaray oo aan hoos loo dhaadhacay waa tahay ugu dambeynta xildhibaan maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan dadka ku dhagaysanaya ee khusayso arrintani waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ah deegaanadaas ku wada nool deriska ah ehelka ah qaraabada ah xididka ah xigaalada ah in colaadda ay joojiyaan wiil baa ku dhasha wiil kuma dhinto colaadda wiil ku dhinta ee wiil kuma dhasho faa'iidana laguma gaaro waxaan marka ugu baaqayaa in la ilaaliyo islaamnimada derisnimada ehelnimada qaraabanimada in labada beeloodba ay ilaaliyaan taa haddii aysan muslimtinimo iyo ehelnimo aysan halkaas ku wada daaqi karin oo ku wada joogi karin oo ku wada noolaan karin in qolo walba deegaankii ilaahay ku beeray ay joogto inta laga helayo dowlad
ama maamul awood leh oo nabadda iyo yani dhiigga qofka muslimka ah iyo hantidiisa ilaalisa inta laga helayo in qolo walba meesha Ilaahay ku beeray ay joogto oo la isnabadgeliyo saasaan ku baaqayaa aad iyo aad baad mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed yaasiin isxaaq oo aan khadka taleefanka kula xiriirnay isagoo ku sugan magaalada Gaalkacyo aad baad mahadsantahay mudane